yaal meel kasta barnaamijkan aad kala socotaan sidii aan tilmaamay barnaamijku waxa idinka imanaya jaamacadda magaalada Burco oo barnaamijkan marti waa magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer markii aan nimisaan tilmaamay barnaamijka Kismaal barnaamijku egba runtii ay ku qabteen dhalinyaro fara badan barnaamijkaasi su'aalihiisu walow ay ka duwanaayeen su'aalaan ahayn haddana laakiin qaab daadihinta iyo sida ay barnaamijka u wadeen waxay isku dhawaayeen barnaamijka kan aan wado intaan magaalada Burco joognay dhalinyaradaasi qaar kamida ayaan la kulanay Jamaal Ali Xasan wuxuu barnaamijka daadiyaa sidaan ay ugu daadinayo kala u daadinay Jamaal barnaamijka ayuu markaa yiri Jamaal aad loogu tacafiyo halka ma ku soo dhaweynaya Jamaal Jamaal Ali Xasan dabcan waa ninka miiska la fadhiya كليبك برنامجك aan hadda wada eegi doona wax ku qabteen isla magaalada Burco kilibkaas bayna baliir eegi doona soo marka koowaad ba barnaamijka daadihinay waxaan yeeri doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka Hakis waa master manaste hadii uu fadhiya soo kaco shacabkana loo garaac master manaste ku soo dhaw barnaamijka Hakis ee magaalada Burco magacaago dhamaystiran waxaad ka shaqeysay xagga ku nool magacaygu waa manaste waxaan ka shaqeeyaa hay'adda waxaad xasuunataa barnaamijkeenan laba jeerna laba ka tuuri doono laba jeerna dadweynaha kaashan doonto haddii aad su'aasha shanaad garatana aad dhari heli doonto dhamaystiran haddii aad su'aasha shanaad ku kacdo oo ay qalad noqotona aad heli doonto inaad ka furto xarunta bahweynta tawxiid oo ku bilaabay intaan kaga nimaadno oo Kismaalkii rasmiga markaan nimaadno Jamaal aad baan kugu ambadeenaya horta barnaamijka qaab daadihinta Jamaal ugu horeyn barnaamijkan qaab daadihintaada inaad fara badan daawada ka muuqata barnaamijkan goorma ku goorayso daawada Kismaal ni horta Kismaal in badan waan daawanayay ilaa adigu 2013 ay daawanay barnaamijka inaad samayso goorma ku dhalatay barnaamijka kulli daacsaaqo wala socotaayo barnaamijka Kismaal Hargeysa ayuu aad ugu koobay daanaguna caasimadda labaad dalkan soo naqaanayo wixii Hargeysa la geeyo ilaa keenan jecelahay marka waxay barnaamijkooda daawasho badan yahay burcana mid u sameeyay sax orda barnaamijka runtii aad buu soo dhaweynaya waa dad badan baa ay soo diray qaar igu soo mission gareeya qaar igu soo taadgareeya anuguna adiga ku daawaysay daawanaysa macnaa sax barnaamijka waxa jeclaa oo bal su'aalaha dhow ka tashan doona su'aaluhu ba khilaaf ka taagan yahay su'aalaha waxaan u baahanay su'aalada cilmi laga kororsan karayo inkastoo aad qosol uga jeeday intermeemka laakiin dad badan baa daawan wax isku day doonaa in su'aalaha qaladsan sidoo wax kale isku day doonaa intaan laakiin barnaamijka uu sameeyno hadhowto qalabka aniga sabta baan lagu leeyahay anna barbaan bixin dadwariye walaha yahay qalabka inta in leeg baa loo dooni doonaa barnaamijka wax kale isku day doonaa barnaamijka dadku waxa jeclaan had iyo jeer in ka qayb galaan laakiin aduu fikradaha ka duwan baad keentay barnaamijka inaad daadihiso ayaa jeclaatay barnaamijka sax inta faraha badan le dad gariyado dawo rumaysaayo way ka qayb galayaan barnaamijka waa ka qayb gashaa barnaamijka la ilaa laakiin aduu waxaad fiiriyaysaa barnaamijka inaad daadiyaysa miyaa kulli sida targetkii ka muuqata waa bushka ku yaraystaa ee daadiyo baadayga go'nayd barnaamijka daadiyaysa ka go'an sax qof kasta fursad baa la siiyay adduunka waa iska caadi ama qof waxa la yaabaa inuu fanaan cod wanaagsan codkiisa qaaday kadib neestiisa uu dhiibo ku soo dhaweey waa la yaabaa qof gabaya marka anu inta sameyn kara inaan kursiga kaaga kaco sax marka rabaa dambe qofku deeli tijaabiya ka horeyso taneen laakiin maanta bila tijaabin bila hawl barnaamijka inta daawan ma ku qiiminaysa barnaamijkan kursiga martida ka soo kiciyo kana rajaynaysa maanta fadhiisanaysa sax halkan aan ku bandeynaya anuguna تربوها كمين نقرية صح إنك إسلامك أنت تسمعك مركا هم بقول لك ما كنا يورد برنامج أنا بقصد دويني يا عملنا كلها إلى البرنامج كده دي سب سويت ساديرو لسنا كورس كم بعد ما دونتها أنا قلنا ترتمها كودين تو كل شيء تربون كان عندهم هل ترتمها جالس يصير لا رمضان كريم macmiil ka faa'iideysa abaalmarinta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ay ku diyaarisay bisha Ramadaanta ku shuba 25 senti oo kaliya
kuna hadal 24 saacadood ama ku shuba 25 senti oo hel 200 oo MB oo internet ah maalintii. haddaba macmiil ka faa'iideyso fursadan dahabiga ah oo kaga shuba adeega dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 4 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel. wixii faahfaahin garaac nambarka 333. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii Kasmaal oo caawa aan ku sugannahay xarunta jaamacadda Burco University waxaan inii taatiinaya anigoo ah Kamal Cali Xasan oo hore u taatiin jiray barnaamijkii Hakis ee ka bixi jiray magaalada. waxaan u yeedhi doonaa tartamaha afraad ee barnaamijka Kasmaal Jaamac Xasan haddii uu fadhiyo oo soo kaco tacabna loo السلام عليكم مستر جامع حسن كسودو برنامج كسمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكله واحد برنامج. عاو كسوان تاي كرسي مرتدى برنامج كسمال. سادو أركتا كسوق قبل كاغا بحوك لي برنامجكو هذا ملانا ساينات كوغولي سنتون. هذه أدبانو فرحسنا هاي هذه كسوق كلا واحد فريدا كرسي حبسان هذه أدبانو فرحسنا هاي هرتا سوق فريسو. هذه برنامجنا عنو كلا سبيه runtii sharaf ay tahay inaan kala soo qayb galo. waxaad xasuunataa barnaamijku in min laba jeerna min laba laga tuuri doono laba jeerna dadweynaha kaashan doonto. bismillaah waan ku bilaabayaa su'aashaada koowaad. Twitterka Korea leeg aad ugu fiirso. buugga halkaraan waxa lagu ururiyay maansadii buugga halkaraan waxa lagu ururiyay maansadii ba Cabdiqays ta Hadraawi ja Ibrahim Gadle ha Gaari. بسم الله. سؤال جوابتي هذا نسخد waxay sax ku tahay ta oo Hadraawi. aad u fiirso waxa istaa laba jeer dadweynaha iyo laba jeer min laba laga tuuri doono go'aankuna waadiga. buugga halkaraan waxa lagu ururiyay maansadii ta oo Hadraawi. su'aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa. buugga halkaraan waxa lagu ururiyay maansadii Hadraawi. su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. سؤال لبعض مستر سؤال هذا لبعض نبي حلقي سي أي ساعد أي سنعد كوحو جنيد وا نبي حلقي ساي سنعد كوحو جنيد وا با نبي الله سليمان عليه السلام نبي الله عيسى عليه السلام شاء نبي الله موسى عليه السلام حاء نبي الله يوسف عليه السلام. هذا فيرسو حبتها تزوينها نديبن daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo qaaya naga mudana waa markii koobaad aanu idin baahno aniga iyo Mr. Jaamac Ciise waxaan maraynaa su'aasheedii labaad. su'aashuna waxay idin oranaysaa nabigii xilligiisii sancadu ay aadka u sareysay aadka u xoogneyd waxa waa nabigii ay xilligiisii sancadu aadka u xoogneyd waxa waa ba Suleymaan alayhi salaam ta عيسى عليه السلام شاء موسى عليه السلام حاء يوسف عليه السلام. سقف أياله وباء وسليمان عليه السلام. هذا في رسالة تعالى نساء. سقف أياله وتاء وعيسى عليه السلام. سقف أياله وشاء وموسى عليه السلام. سقف أياله وحاء ويوسف عليه السلام. هذا في رسالة تعالى نساء. برع يونيفرسيتي والكذا أيون كسوغناي dadka ugu badan waxay codeeyeen Suleymaan. Aan ku raacno. Go'aankuna adigu ka gaa diyaad ku raacayso iyo diyaad ka soo horjeesanayso labadaba waadiga. Aan ku raacno. Wad ku raacaysaa. Nabigii xilligiisii sancadu ay aadka u xoogneyd waxa uu ahaa ba oo Suleymaan ayaynu wadeegi doonaa. jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su'aashaada saddexaad Master Ciise. abtigay shashagaab shirka ka dhawaaq waa ba mobilka ta onkodka ja qoriga rasaasta ha siiriga. aad ugu fiirso abtigay shashagaab shirka ka dhawaaq waa ba mobilka ta onkodka ja qoriga rasaasta ha siiriga.
haddayna su-aasha jawaabta isku dayno waa ja waa qoriga rasaasta. qoriga rasaasta laba jeer oo min laba ah iyo hal mar oo dadweynaha ayaa ku hadhay. aada ugu fiirso su-aashaada saddexaad ayaad maraysaa. wayno taasaynu eegayna. qoriga rasaasta abtigay shashagaab shirka ka dhawaaq waa ja oo qoriga rasaasta ayuu yidhi. su-aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha afraad su-aashaada afraad silsiladii guba waxaa bilaabay ba ismaaciil mire ta qamaan bulxan ja cali dhuux aadan xa maxamed kaahin. ja oo cali dhuux aadan ayaa cali dhuux aadan silsilada bilaabaa. aada ugu fiirso su-aashaadii afraad silsiladii guba waxaa bilaabay ba ismaaciil mire ta qamaan bulxan xa cali dhuux aadan ja cali dhuux aadan xa maxamed kaahin. jaadoo cali dhuux aadan wey. jaadoo cali dhuux aadan waad ku adkaysanaysa. su-aashayadii afraad silsiladii guba waxaa bilaabay jaaw cali dhuux aadan. su-aashaas jawaabteeda ayaynu wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aashaada shanaad su-aasha shanaad dhasha abgurida waxaa la yidhaahdaa ba cagabaruur ta diingaanyo ja biiq xa fiil. dhasha abgurida waxaa la yidhaahaa ba cagabaruur ta diingaanyo ja biiq xa fiil. waa taadoo diingaanyo. ta oo diingaanya. aada ugu fiirso su-aashaadii shanaad hal maroo aan dadweynaha iyo laba jeer aan laba kaa tuura ayaa ku hadhay. go-aankuna adigu kaa go-a. waa taadoo diingaanyada ku adkaysan. taadoo diingaanya waad ku adkaysanaysa. dhasha abgurida waxaa la yidhaahdaa ta oo diingaanya. jawaabtaasi su-aasha jawaabtaasi ayaynu wada eegi doonaaye dhasha abgurida waxaa la yidhaahdaa ta oo diingaanya. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. aada ugu fiirso su-aashaadii lixaad qalin duhuuruhu wuxuu ka mid yahay tuure qalin duuruhu wuxuu ka mid yahay ba guurtida ta ganacsatada ja gabyaaga xa wadaadada. su-aasha jawaabteedaan isku dayo waxaa oo wadaadada. qalin duuruhu waxa uu ka mid yahay ba guurtida ta ganacsatada ja gabyaaga xa wadaadada. waxaada wadaadada wey. xaada wadaadada waad ku adkaysanaysa. aada isaga fiirso su-aashaadii lixaad qalin duuruhu wuxuu ka mid yahay xa wadaadada. su-aashaydii lixaad ayaanu maraynaa daawadayaale. waxa uu yidhi su-aashu nala weydiinteedu waxay ahayd qalin duuruhu waxa uu ka mid yahay xa oo wadaadada ayat waad ku adkaysanaysa. ku adkaysana. jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. aada isaga fiirso su-aasheenii toddobaad baynu maraynaa. laba jeeroo min laba lagaa tuuro iyo hal maroo dadweynaha ayaa ku hadhay. dalka maraykanka gobolka ugu dadka badani waa ba colorado ta ottawa ja alaska xa columbus. su-aasha jawaabteedaan isku dayo waa ja oo alaska weya. dalka maraykanka gobolka ugu dadka badan leh waa ja oo alaska. ugu dadka badan miya. xabaddaana dadweynaha u dhiibeen. daawadayaashayda qiimaha qadrinta iyo qaayaha naga mudano waa markii labadan idin baahano aniga iyo master jaamac. markii hore waad caawiseen waad mahadsantihiin. marka labaad su-aasha aad isaga fiirsada qofkii garanaya khaliyaata gacanta u taago. aada ugu fiirsada su-aashuna waxaad idin odhanaysaa dalka maraykanka gobolka ugu dadka badan leh waa ba colorado ta ottawa ja alaska xa columbus. imise qof ayaa le waa ba oo waa colorado. imise qof ayaa le waa ta oo waa ottawa. imise qof ayaa le waa ja waa alaska. imise qof ayaa le waa xa oo waa columbus.
aada ugu fiirso dadweynaha intii ugu badnayd waxay raacday ja oo alaska go-aankuna adigu kaa go-aa haddaad ku raacayso iyo haddaad markii horeba gobolkaas inuu badinanay marka waan ku raacay ja baan ku raacnaa alaska yes waad ku raacsan ku raacay su-aasha 7aad dalka Maraykanka ugu dadka badan leh waa ja oo alaska waad ogtaa waad ku go'aansanaysaa waad ku adkaysanaysaa waan ku adkaysanaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa gobolka ugu dadka badan leh Maraykanku waa ja oo alaska jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay master jaamac su-aashii 8aad riwaayadii al-amiin ma iisho waxa curiyey riwaayadii al-amiin ma iisho waxa curiyey ba Ahmed Salman Bidi ta Ismaan Askari ja Boon Xirsi ha Xasan Gurey Xasan Ganay asaga fiirso su-aashaay janaad laba fursadood dadweynaha waynu dhamaysanay laba jaro mi laba ka tuuro in baa ku hadhay saasha labayna ku tuureen laba kamid ah ayaan ka tuuri doonaa riwaayadii al-amiin ma iisho waxa curiyey waxa isku soo haray ba oo Ahmed Salman Bidi iyo xa oo ah Xasan Ganay xaado Xasan Ganay xaado Xasan Ganay waad ku adkaysanaysaa riwaayadii al-amiin waxa curiyey al-amiin ma iisho waxa curiyey ba Ahmed Salman Bidi xa Xasan Ganay gaan kaadigu ka gaa ha oo Xasan Ganay ku adkaysanaysaa ku adkaysan waa ogtaa taasina kulli wada eegi doonaa su-aashaydii 8aad ayaanu maraynay riwaayadii al-amiin ma iisho waxa curiyey laba kamid ah ayaan ku tuuray waxa soo haray ba oo Ahmed Salman Bidi iyo xa Xasan Ganay xa oo Xasan Ganay ha oo Xasan ku adkaysanaysaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa xa oo Xasan Ganay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay Ahmed Salman Bidi iyo hagaajin mister jaamac barnaamijka in hadda barnaamij baa waday صح كسمان daawadayaal baan ahayn isma dad fara badan baa daawani barnaamij horena wada wadi jirtay صح maxaa isbedelay see ka mid riyooyinkaaga mid ka mid maxaa yargaa horta niyow dee horeba saan kugu sheegay inaan kasmaal marun daadiya horta waa targetkayga koowaad bay ahayd maasha allah dee maanta waniga kursigii marsida wadiga adigu ku fadhiya midda labaad waxa soo kordhay dee horta annagu waxaan oo kamarada iyo qashaafada ismayna arki jirnay shaqaysku meeda la waa annagu mobilkayga iyo markayga kamarada ayaan ku waxaysan jirnay meeshiiba waa tan wada aragtayo walgu nabiiliyade horta imika studiogiina marka barnaamijku dhamaado صح studiogiina waa isku raacana صح studiogiina anaa daadahinaya marka asxaabtii maanta xaggii ma fadhiisanaa ilaa afurkaaga saan dhowr siyaarad ku galna صح tala guud uu barnaamijku waa barnaamij dhaqan saan tilmaanay oo dad fara badan wax ka korsanayaan runtii marka dad fara badan baa daawadasaan tilmaamay oo su-aalihii ku xidhan su-aalo fara badan baan ku haynaa oo cilmiyana kuna inka weydiinaysa iyo kuwa ka badana baar badan baan ku siinaa haddii la yidhaahdo oo inaad weydiisid su-aalaha wixii aan dhaqanka waafaqsanayna bir rabadaan lagu jiro oo barnaamijkeena hadda dowr sima doona waxaa laali wixii xaaraan in halkaas kaga hadhaysaa maanta dadka kasmaal fadhiisata xalaalun baad u yeelaysaa dad xalaalo sooman baad u yeelaysaa agaasi ku daynaysaa wixii xaaraanaha صح wixii kale su-aalaha joogkiisi waa iska cad wixii kaftani laakiin wixii aad iyo dhaqanka ku xun ama dee su-aalaha inaan odhanayni carruur yar baa ku daawanaysa dad badan baa ku daawan doona barnaamijkaaga waanba baxay imika laga bilaabo صح dad fara badan kasmaal ku daawanayaan marka waxaan ka codsanaa in sii bedelo halkaaga aad ku noqon doontaa ilaa kaaga aad usoo dhaweysidaan anakayga ugu wareejisay maxaad leedahay inteenaan kursiga fadhiisan ugu dambeyntii dadweynaha kolley dee maanta wada aragtaanoo kasmaal ayaan marayaa dee su-aalaha wixii hore ee tegey ee dee barnaamijkii imika sheegaysay waxaasi waa wax tegeyna tigsmaad malabay soomaalida tiraa dee insha allah wixii dambe barnaamijka hakis waxaad kala socon doontaan youtube-ka
hakis burco channel annagoo u bedeli doona wax xikmada iyo entertainment kaliya taa iyadoo ay ka reeban tahay waxyaabaha sucab saqeeyay aan diinta ogolayn ayada ah iyo fadeexada absolutely asxaabta kula soo saarta yaxan ka salaamsaay barnaamijka qaybka tiin nabad ku shugteen oo qarno inay la joogaan mal malaasati aad baan salaamay hol kulli yarta deewan farbadan